asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. walaal waxaad ila qaadataa caawa dardaaran uu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu siiyey qof kastoo kurbaysan, qof kastoo murugaysan, qof kastoo warwaraya, qof kastoo arrimihiisa xayiran yihiin, murugaysan. qofkaasi hadduu oraahdan uu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ku hadlo ama uu dhaho, murugadiisa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu bedelayaa farxad. murugadii inta laga dulqaado oo ilaahay uu ka kaxeeyo buu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu bedelayaa farxad. talow ducada qaaliga maxay tahay? ducadaa waxay tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, maa asaaba cabdan hamun walaa xasnun faqaala allahuma inii cabduka ibnu cabdika ibnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدل مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمنهن. النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu leeyahay qofka mu'minka haddii markaa ama addoonka qofka addoonka ilaahay subxaanahu watacaala ah haddii uu murugoodo ama uu hami qabsado uu dabeedna yidhaahda ducadan, allaahuma allow inii cabduka waxaan ahay addoonkaagii, ibnu cabadik waxaan ahay addoonkaagii inankiisa, ibnu amatika addoontaadii inankeydii baan ahay, naasiyatii biyadig arrimahaygoo dhan iyo maamulkaygoo dhan iyo qorshahaygoo dhan ilaahayow adaa gacanta ku haya oo gacantaadii ku jiraan, maadin fiya xukmuk xukunkaaga iyo taladaada ilaahay waa igu soconaya, cadalun fiya qadaa'uk qadarkaaga iigu dhacayna cadaalad baan u arkaa oo waa ii cadaalad. as'aluka waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin huwa lak magac kastoo adiga aada leedahay baan wax kugu baryayaa wax kugu weydiisanayaa, aw anzaltahu fii kitaabik ama aada kitaabkaaga kusoo dejisay, aw callamtahu ama aada bartay axada min khalqika qof ka mida abuurkaaga, aw ista'harta bihi ama aada ku baaqi yeesha fii cilmi lgaybi cindak qaybka cilmiga agtaada qaybka cilmiga ah ee agtaada yaalla wixii aada ku baaqi yeesha baan ilaahay wax kugu warsanaya. maxaan ilaahay weydiisanaysaa marka? an tajcala alqur'aana alcadiima rabiica qalbii ilaahayu inuu qur'aanka noqdo mid qalbigayga camira oo qurxiya, wa nuura sadri laabtayda mid ifiya, wajalaa'a xusni mid murugadayda iga feeda, wadahaaba hami wagami murugadayda iyo tiiraanyadayda iyo hamigayga mid iga tagsiya allow iga yeel. allah ilaa hadduu qofka ducada uu ku ducaysto adhab allahu hamahu wagamah ilaahay baa murugadii dhibaatadii kurbadii hayse ka dulqaadaya, wa abdala makaanahu faraxa murugadiina booskeedii waxaa loogu bedelayaa farxad. walaal soo farxad ma raadinaysid, soo ma rabtid in murugadii farxad lagugu bedelo? ducadan ku dhawaaq. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam mar allaale markuu dhameeyey ba asxaabtu waxay ku dhaheen nabi allow haddaba sooma haboona inaan baranno? haa buu ku yidhi barta, waxaa habboon qof kastoo maqla ducadani inuu barto ayaa markaa fiican buu nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam. waayo cid naga kurba badan, naga murugo badan, naga dhibaato badan, naga maxay ahayd dembi badan ma jirto, laakiin murugada maanta ku haysa waxaa kaa faydi kara ilaahay subxaanahu watacaala. isagana haddaad ducooyinka qaaliga ku barido ducada uu nabiga sheegay aada ku barido, waxaa wallaahi balan ah siduu nabiga sheegayba inuu kaa dulqaadayo ilaahay subxaanahu watacaala murugadii kuguna bedelayo farxad. allah ilaahayow murugadayada farxad noogu bedel. qof kastoo i dhegaysanaya ee bartana ilaahayow ka dulqaad, ilaahayow ka dulqaad yaa rabbi yaa raxmaan. walaal ducada sheergaree la wadaag, waayo nabiga wuxuu yidhi qof kastoo maqla inuu barta ayaa haboon. isku dayna inaad baratid oo xifdidid. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. sheergaree marka walaalada la wadaag.